waxaynu acmaal samaynayno dhammeeyna inala yaraato aanayna weynaanin waayo waxaynu soo tilmaamnay qofka mu'minka ah wuxuu rumaysan yahay ilaahay shukrigiisa qura inaanu dhammaynin ilaahay mahadnaqiisa qura inaanu dhammaynin inaad wax kale raadiso waajibada iyo heshe qofka mu'minkii markuu og yahay ilaahay wuxuu nicmo siiyay isla markaana uu og yahay wuxuu macsi galay iyo dunuub sameeyay wax kasto camal uu sameeyay lama buuray ilaahay naxariistiisu rajaynaya sadaradeed baa ilaahay aayaadkii labaad ee ku soo degay nabi maxamed fi suurati mudaththir maxaa la yidhi yaa ayuhal mudaththir qum faandir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatahhir والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر كان اسدديو كعودك بالير وربك وينه وقلبك يا مريها يا جيركا يا جودكا يا غدها طاهريان وحمها كديرو waxa loogu daray wala tamnun tastakthir hasan al-basri tafsiirkiisu wuxuu leeyahay wala tamnun bi'amalika ala rabbika tastakthir amalka yaraad samaysatay ilaahay ha ugu manna sheeganin isaga uu kula badan yahay qaar baa ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum ina islaameen bay kuugu galad sheeganayaan baa ilaahay yiri war islaamnimada ha ku galad sheeganina baa ilaahay yiri ee rabba idin ku galad sheeganaya inuu idin islaamiyay inuu diinidiisa ku islaamtaan oo idin hanuuniyo rabba idin galad sheeganaya baa ilaahay nabiga kaleey salaatu wasalaam xalalay markaa la tamnun bi'amalika ala rabbik adigoo dacwo iyo diin iyo jihaad u kici doona haddana waxa aad samaynaysaa amal iyo kula buuran oo intuu kula bato ilaahay ugu galad sheegan walidalik ba ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi waxa laga sheegay inuu yiri qofka xaadira ama garta xaqiiqada rabbinimada isla markaana garta xaqiiqada adoonnimada garta Allah subhanahu wa ta'ala naftiisana garta buu leeyahay waxa uu cadaanaysa waxa uu tijaara haystaa inaan wax ilaahay la hortagay inaan ahayn baa uu cadaanaysa buu leeyahay ilaahay iyo nimcadiisa iyo wuxuu ku siiyay markaad garatiyo weynidiisa iyo wuxuu xaq muto iyo budaacadaada waxaad wadata iyo yaraanteeda ama falxumadeeda wax ilaahay la hortagay inaan ahayn xataa buu leeyahay haddii camalkaagu yahay camalka thaqalaynka oo dhan khashita caaqibata ciribtiisa كعبسريس إلهي محل لا قابل أبو لي إلهي وحد لا قابل إسا كرم كيس هي جود كيس هي فضل كيس هذا حكراد عينس ربك يا نابورته وكريم والجواد وإله داق بغن ولذلك بالقرآن كي وجوه الرجال النبي محمد كسودجا إلهي وحيسوك كان شاقين كريم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بإلهي اقرأ أخرج وربك الأكرم يدور ربك ويهي الأكرم إله كريم كأوح بحنت بضل إلهي فضل كيس راد عيننا مركز وحي علماء هذا camalkaaga in la aqbalay waxyaabaha aad ku dareento waxa kamid ah taacada ku sii badata haddaad aragto qofka oo wadada laazima waa tusaale ama waa tilmaam aynu rajaynayno in ilaahay acmaasha ka aqbalay haddaad aragto qofka oo labaclabaadiisu badato hor iyo dib u socdana shaki bay leedahay qofka oo qumanaado toos u socda haddaad aragto oo macaasida ka fogaada waayo ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamaya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نينكا أعطى مفعول كيدي لما شيء أعطى جهده كله مال يحور ينفي وحول بقفك بحيي أو اتقى إلهنا كعب صدي وحي لقربين وليمي وحانا ولصعدين إلهي كعب صنيه وصدق بالحسنى حسنى تنمر وحيكو شيغان علماء كلمة لا إله إلا الله رميي توحيد سينا استا مرنا وحي هذا وإلهي وعدك سيبوه سنة رميسان جنة إيا وحال لكو باقي كافة سنيسره لليسرى بالي تفضل بالله فضيدينيا إذن هداد aragto iyadoo taacada lagu fudaydiyay waxay u muuqataa bay leeyihiin acmaashaadi hore in la aqbalay waayo jidkii ayaa alla ku sii fudaydiyay ilaahayna waa ka quraanka ku leh wayaziidu allahu alladina ihtadaw huda ilaahay wuxuu kordhiyaa kuwii hanuunay hanuun baa loo sii kordhiyaa adigoo taacada sii laazimay hadaad aragto bushaarayso waxay u badan tahay intii horeyna la ka aqbalay sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin